مدينة أحمد عداني بحسن بلا سعودي حق أن كنت بي هالكان مع المكور تاسو قصاب سنة قبل درس أهان جرني أو سنك وحلو مري مدح لغا صلاحي كدب نير درسونتي كدب لا أفتوبتي مع المكدب دب لو هلي waxaa suuragal in qatay maanta inaan la hadlo gabadhii dhacdadaas ay ku dhacday maalmo kadib oo miirka ka maqnaa waxay maanta ila wadaagtay xog badan oo sir ah taas oo ku anfacaysa maanta inta aan xogtaas kula wadaagin waxaan ka codsanayaa inaan muuqaalkan la wadaagtid walaashaada si aad u badbaadiso walaalaha kale taas oo suuragal ay tahay inaysan xogtan weli aysan helin maalin walba baraha bulshada wax ku aragnaa gabdha waaweyn oo la baafinayo taasoo qofna uusan isweydiinin sababta loo weynayo gabar 18 sano ka weyn sababta la isma weydiinin waxa laga yaabaa qaarkeen inaysan weli rumaysan sheekooyinkan laakiin waxaan ku xaqiijinayaa oo wallahi waxaan ku xaqiijinayaa in dhacdooyinka sax yihiin la wadaagay xitaa waxaa jirta dhacdo gabar maalmo ka hor aan ku soo baafinay social media taasoo dib loo helay iyadoo laga dhoofinayo airportka Muqdisho xogteeda waa nila wadaaga waa kana meeshan ku qoran dib u akhrin kartiin maalmo ka hor aan halkan ka baafinay dib loo helay gabadha xogteeda waxay iga bilowday in mir ugu dambeysay markii laga waday xaafadda waa bari kadib meel lagu hayay meel container ah taas oo aysan ogeyn mugdi ah kadib waxay noo sheegtay in gabadha meel la geliyay mashiino ku xiran yihiin qabow badan baaritaan lagu sameeyay kadib dadkii su'aalo is weydiinay gabdho badan oo xitaa ay aragtay oo kaliya oo wax ugu xiran yihiin mashiino kadib waxa la ogaaday inay iyada kaliyeeda ay jiran yihiin waxa loo sheegay inay baxdo indhaha laga soo xiray waxa la keenay meel mugdi ah xilli haween ah kadib waxay ii sheegtay inay soo baxday kadib ay imaaday ex control weli ma is weydiisay qof ku dhashay magaaladii oo ku dhashay ku soo barbaaray wax ku soo muuqaalkan inaad la wadaagtid walaasha ama walaalkaaga maqan si xogtan u helo waxa ku badbaadin kartaa walaashaada maanta hal second oo xogtan aad la wadaagtid waad ku mahadsantahay daawashadaada waxaan ku rajeynayaa nabad qab muuqaalkan aad share garaysid waxay ka saacidaysaa dhammaanteen naga saacidaysaa dadka dhagarta magaalada ku dhex wado qalqal inuu galo ay magaalada iskaga tagaan ama mishinkooda ama ficilkooda oo meeshaas ku dhamaado maanta dalkaaga walaashaada dadkaaga waxa ku badbaadin kartaa muuqaalkan oo aad la wadaagtid waa mahadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maalin walba in gabdhaha